ku salaamaya marka labaad waxa weeyaan anigu waxaan ahaa dadkii dalkan u soo dhintay jeel ayaa maxay ahaydey ayaan u soo qurmay jeel baa maxay ahaydey 3 sano mutawaatir ayaan ku jiray ummad Soomaaliyeed ayaan dhex joogay oo maxay ahaydey aniga i soo iibsatay ummadaas oo ahayd Soomaaliland ayaan soo iibsatay waxay noo soo dhiibeen dad Soomaaliyeed oo macna Ethiopian iyagu iska dhigay ayay noo soo dhiibeen dadkii Soomaaliyeed Ethiopian iska dhigay waxa weeyaan siday noola dhaqmeen anagoo gabdho Soomaaliyeed iyo wiilal Soomaaliyeed siday noola dhaqmeen day wax laga sheekeyn karo ma waana qaadeen gidib bay nagu rideen jeel bayna dhigeen maxay ahaydey jeelka dhibaatooyinka day ka jirina wax laga sheekeyn karayo ma gaajo jirdil darxumo ay maxay ahaydey ay nagaadsiin taasoo aan kelina waayna dadka yaga oo maxay ahaydey dhan rag iyo dumarba aanu ka simanahay oo waaga Ilaahay ka bariya cagafta maxay ahaydeyna miidka maxaabiistana la waasay waxa soo lagu dilay oo gaajo iyo jirdil anoo waxa soo dhibaato soo maray haddana hamigaygu teemuuna maxay ahaydey oo maanan rajago mun igu jirin waan igsanayay inaan maxay ahaydey rajadayada iyo xaqayga maruunan helayno waan igsanayay maanta alxamdulillah rabbil caalamiin mar haddii Ilaahay xaqayga soo dildilaaciyay Ilaahay baan maxay ahaydey ma hadda iskale Ilaahay baan ku shukriyeynaa jabada wadaniga xoreynta waadeena oo salaamaya Ilaahay guusha iyo maxay ahaydey xaqeena noo muujiyay ayaa maxay ahaydey ma hadda iskale dhammaan ummadeydana waxaan ka codsan lahaa inay maxay ahaydey inaga waxa soo dulmiya soo maray oo waxa arkay oo dacada Itoobiya soo marisay maanta inaynu tan faraarq iyo maxay ahaydey qabiilaysi wax la yiraahdo la inagu dayo aad iyo aad ayaan uga xumahay boqolaad ayaan uga xumahay waxaan ku faani jiray Ilaahay baan oran jiray calanka maxay ahaydey oo wadeeniya nin garbihiisa saaray ayaan badanaa oran jiray maanta alxamdulillah rabbil caalamiin garbaha ayaan marka waxa weeyaan dadkayga in maxay ahaydey dhalinyaradayda in qabiilad iyo tan faraarq la galiyaad baan uga xumahay war rag idin soo dhintay intaas oo sano maxay ahaydey gumaysiga Itoobiya idin kala soo dagaalamayay wax qabiil la yiraahdo kuma dagaalamayeen waxay u dagaalamayaan ummadda Soomaaliyeed deegaanka Soomaalida degta xaqooda inay soo rideen bay soo dagaalamayeen inaad garan weydaan oo qabiil iyo wax aan loo joognaad tiraadaan macna way ku dhimanayeen aad iyo aad baan wax ma annagu jeelka waxaan uga qurnay waxaan maxay ahaydey ragayga culus soo wada saar ummadayada inuu xaqooda helshay qabiil kuma dhinteen Soomaaliyeed qabiil wax la yiraahdo anu kuma dhinteen laakiin waxaan ku dhimanayna oo maxay ahaydey intaas sano ama jeel ugu soo jiray ama maxay jirdil iyo dacati iyo maxay ahaydey duurkaas oo nala yariyo oo dadkayga laga yariyo aan ugu soo dhimanayn waxay ahayd dadkayga xaqiisiinaan helada ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka degana macna dadka wuxuu aragsan yahay wax la yiraahdo jabada dan horeynta wadeena inay u baxday qabiil wax la yiraahdo oo macna ogaadeen ah taasay dadkayagana macna waxa la isugu diray ama la isugu jabinayo weeyaan war jabada wadaniga xoreynta wadeena umayna bixin qabiil wadanka dadka degana ogaadeen ma aha ogaadeen ummadda kale ayaa ka badan deegan ogaadeen kaliya uma dulmaneen ummadda deegaanka degan oo dhan baa dulmayd marka dhalinyarada aad baan uga xumahay inay garan waayaan dadkaygu inuu garan waayo baan uga xumahay war maanta Ilaahay xaqeennimo inoo soo riday xaqeennimo in maanta helay gacmaha inuu isqabsano aynu Itoobiya xaqeena ka soo ridan taasana ugu weynaa marka walaal waad mahadsantihiin aad iyo aad ayaan idin salaamaya dhammaantiin sidaas maxay ahaydey wanaagsan aynu shirkaan maxay maanta aynu jabadeena aynu hor fadhino aynu shirkaan ugu hor fadhino aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka saasana walaal idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh